waxaan kala hadlaynay maayirkii caasimadda Hargeysa mudane Cabdikariin Axmed Mooge oo maantay khamiis hay'ad yiri waxaan sameeynaa la xisaabtankii sanadka iyo waxaan qabtay baan soo bandhigayaa la xisaabtana waan sameeynaa maayirkii laga sugayay inuu meel bulshadiisu joogto uu ka hadlo oo aadna loo diiday bariyahan shaashadaana ka maqnaa bulshadana ka cararayay iyo kamaradaha iyo mikrofoonada ba xaq laga filiyay inuu meel bulshadiisu joogto ka cabanaysay inuu muxuu ahaayay u jawaabo uu ka xaqabtiro waxay uga baahnayeen ba wuxuu ka soo hadlay xara ciidan sidii wax loogu talagalay waliba sanad guurada ciidanka booliska in loogu talagalay buu ka soo dhaxadlay waxa la yimid Cabdikariin Axmed Mooge Cabdikariin la xisaabtan maad sameeyay wali alaanka xitaa maanta xafladda aad qabatay caasimadda Hargeysa kala qaybin bay u hayd tiktokeradii adiga ku taabacsanaa ee burco waliba hawdkeega sare ka yimid inay ku soo daba fadhiistaan bulsho kula xisaabtamaysay maaha iyo xukuumaddii aad muxuu ahay ka mid noqotay ee wadani inaad ku soo casuunto maaha bulshadii kula xisaabtamaysay waa tan joogta degmada Ibraahim Koodbuur iyo Gacma Dheere iyo 26 Juun waxaan ku leeyahay Cabdikariin anaga daanta lagugu tirinayo ee adeegaan ahaan u leedahay wixii aad ka qabatay ha ku soo bandhigin xarada ciidankee kaali bulshadan ku baahan ee ku yeedhaysa ka cabanaysa qanci oo la hadal bulshadaada waxaan leeyahay Cabdikariin Axmed Mooge waxaad ku sifowday oo aad muxuu ahaayay qaaday dariiqii foosha xumaa iyo qabyaaladda iyo kala qaybinta iyo nin jeclaysiga adiguna waxaad nin dhalinyara oo aad ugu han weynin oo aad u jeclayn oo aanu doonayno inaanu kaga baxno waxyaalo badan oo siyaasiyiinta Soomaaliland ay muxuu ahaayay ku sifoobeen si midaysan oo muxuu ahaayay aan reer iyo qabyaaladnimo ku jirin baa lagu doortay dhalinyarta Hargeysina si fiican bay ku wada taageersanayd han kalena waanu kala weynoona madaxweynaha baan kula rabnay laakiin tooshkii qabyaaladda baad qaatayba oo waxa tabada gelisay qabyaalad iyo wixii bulshadan Soomaaliland lafjabka ku ahaa ee ragaadiyay ee qabyaaladda marka waxaan ku leeyahay maayir noo kale anaga ka cabanayno oo wixii aan xaq u lahayn ka weynee noogu kale degmada Ibraahim Koodbuur iyo 26 Juun kale qanciyo nala hadal oo bulshada toos u horimo oo shaarico horimo oo u sheeg waxaad u qabatay 12 kilomitir baad u sheegtay degmooyinka inta aragtay laakiin aad u qabatay waxaan ku leenahay degmadan Ibraahim Koodbuur waa degmada ugu cashuurta badan leh Hargeysa kaamana haysa waxay xaq u lahayd wadadii 100 ku sugaysa wadadii isku xidhaysay Jigjeer iyo Xaraawr baa ku sugaya oo qabya oo waliba tan 3 sanadood miisaaniyadda dawladda hoose ku jiray marka waxaan leeyahay maayirka waxba ka muxuu ahaayay caabin mayso fallaadhina gilgilasho kaagama goda leeyahay inaad xarooyinka ciidanka ka soo dhaxadasho sidii waxa taliya ciidan aad tahay adeer anaga taasi nama khusayso namana matashay waxaan ku leenahay noor kaalay oo naqanci maayir waxaanad ku meeraysan iska qiiradii la sheegay mar un yaro kula qiiraysan ma ku daba joogtaan leeyahay maayir marka waxaan ku leeyahay dadkii ka soo horjeeday ka cabanayay tayrida gubay oo hor kaalay qanci dadka waxoogana wax ugu qabo wax kale kaagama baahan waxa la sheegay maayirku in degmada Ibraahim Koodbuur oo u dhisay degmada 26 Juun u dhisay 7 kilomitir halka degmada ina Mooge uu dhisay 10 kilomitir ku dhawaad maxay tahay fariintaasi fariintaasi waxda bulshada aqliyadooda lacaaya shacabkan ba aqligiis lacaaya ayada wax qiimo la maaha 7 kilomitirna kamaana sugayno mana qalanto wax ka badan baan ku sugaynay inuu noo qabto waxa weeyaan waa degmada ugu rafka badan leh uguna barnaamijka iyo shacbiyada badan leh weeyaan degmadan 26 Juun iyo Ibraahim Koodbuur waana degmooyinka ugu cashuurta badan leh waliba oo hadii sanadkii la eego waxay xaq u leedahay in loogu celiyaa waa degmooyinka ugu cashuurta badan leh 35% bay ay ka tahay wadanka muxuu ahaayay Ibraahim Koodbuur maayirku wuxuu sheegay degmada 26 Juun inuu 12 wado u dhisay isku geey marka la isku eegala 7 kilomitir ay dhan tahay macala 30 mitir waxa ku jira shuba taasi wax qabadkaygii aanu kaaga baanayn ma aha baan leeyahay maayir taana ha ku meeraysanine waxaanu ka rabnaa sida degmooyinka kale aad u dhistay inaad noogu dhisto degmadan waxaan aanan xaq u lahayn ma doonino degmooyinkaas in wax loo qabto xaq bay u leeyihiin waa degmo Hargeysa kamid ah waa xaq bay u leeyihiin laakiin degmooyinkan in degmadii laga reebo waliba cashuur bixiyaashii ugu badnaa joogan oo wadanka waliba markaad eegta cashuurtii la libilaabay 90% baa kor loo qaaday cashuurta sanad ay dawladda hoos u qaatay waxayna cashuurinba ma jiro marka waxaan leeyahay maayirka war bulshadan shacabkan cashuurteedii bay ka rabtaa wixii aad ugu qaba waxa halkad marisay maayir Mooge deegaankiisa wuxuu geeyay mashruuc 20 milyan ku kacay oo isku xiraya calaamadooda way jirtaa wadadaasi taasi waxa la casrigeedu waxa laga rabaa inuu 150 u dhiso 150 baa laga rabaa inuu u dhiso
oo uu yidhi waxa ku baxaya 19 milyan dee waa bulshada indheeguma lagu jeedinayay markaa 150 baan ka rabaa iyadna inuu dhiso dee on xaq u leeyahay wadada ugu ballaaran ee bilicda Hargeysana soo saaraysa ay tahay hadday bilic Hargeysa laga sheekaynayo qurux iyo cagaarin Hargeysa la dhisayo 150 kaasoo la dhiso oo 4 degmo marayso ayaa ugu qurux badnaan lahayd Hargeysa maayirkan wuxuu noqday maayirkii ugu horreeyay ee Hargeysa kala qaybiya sidaad u aragtaa وني عدالة دول القيبية عدالة درة دول القيبية وعدالة بيتراد عربته ما يركي كوري تدقمه ودسيو محو هاي رير نما كو دسي أمبو حش نما كو دسي مو تشرين هرقيسو بلا وحوضة قبض بيشيغس لكن كاني احبو سميو مال آن نانقرني ينبون حمان تدام فرستانا حتى كفتيريو كوب شاحان كعب آن لحين أيو دوين كذا ركتك سمي مايرك مرقو عن لاي مايركا وانهم ماير عاصمتي هرقيسة دباطة انت نوقف فلاني weli hadda rajaanu ka damacsanay ka soo laaban kulana wadada ku taagan tahay dadkaagana hor kaalay cadaalad iyo sinaan iyo walaalnimada u sameeyay bal xildhibaanada deegaanka ka soo jeeda maxaa firin dirsa horta iyaga kuwaasi ayaan darre u tii Saciid Curi iyo xildhibaanka ugu liita golaha deegaanka ayaa toos u qaatay wadadii muxuu ahaayay calaamadaha ka soo baxsay boorka soo maris oo ku ifiyay yidhi wadadan waa la musuqmaasuqay waxaan leeyahay kuwana qaybta dacaambood kale fadhidaan shacabkiina soo doortay inaad u hadashaan oo xaq waxay u leeyihiin inaad u dootaan ayaa la idinka rabaa kaya kana waa la sugaya waxaan leeyahay in bulshada hor yimaada waliba hadana shacabkan la hadlayn la xisaabtama xildhibaanada doorateen bal soo karaa xildhibaanadii degmooyinkii 6 June Ibrahim Kodburi gacmo dheer laga soo doortay inay TikToker isku bedeleen xildhibaan aan ahayn wallahi horta waa bulsho kii wanaagsanaana gunta maray kii u xumaana dusha soo maray ruuxantii wixii laga filayay iyo wixii xaq loogu lahaa lagama hayo maxay xildhibaanada golaha deegaanka ee laga doortay degmooyinkan shacabkoogiina lama xisaabtamin oo la xisaabtan kumay sameyn marka nimanka waxaan leeyahay waliba tooshka la daba qaato nimankaasoo guryooga ha loogu daato nimanka la xisaabtamo hana la soo fadhiisiyo maayirka xigeenku wuxuu galaa wadada 150 xaafidiisuna ku taala wali wadadina lama dhisin arka maxaa ku jawaasaa ونو ما يركو حيجانكو نكو مودا نني wanaagsan oo muxuu ahaayay Cabdikariin Axmed Mooge soo horjeeda ayuu buu noqday qayb nin xaga dacaamka ka hadlo ag fadhiya marka isagu waa ku xigeen isaguna maayar weeyaan maayar ku xigeen xaqna waa loogu lahaa inuu ka hadlo wadadaasi waliba tana waa gurigiisu degan yahay marka aayad darida uun bay tilmaamaysaa iyo siyaasaddu ku fashilmay waliba in isna meesha iska casilaaban jeclaan lahayo iscasilo iska taga meesha haddaanu bulshadiisu waxba u qabanin inaanu muxuu ahaayay meesha sii fadhiino ku sii dhagsano kursiga aanu jeclaan de waxba mushaarkeeda qaadataa qiimo ku lahaan maayar leeyahay maayar ku xigeen meesha iska carar adiguna